wuxuu ahaa kulan qof walba oo Soomaaliya uu sugayay waxay wiilasha qarankeena Soomaaliyeed ee Guul ka heleen lugta hore ee ka dhacday cariga Jabuuti oo guul ahaan ugu ciyaarayay qof walba wuxuu dareemayay in kaliya ay tilaabo yar ka xigto ku biirista heerka guruubyada isreebka koobka adduunyada ee qadar ka dhici doona sanada 2022 dhalinyarada reer Muqdisho ayaa badi waxay ka soo bixeen guryahooda si ay ugu daawadaan goobaha bulshada iskugu timaado xilli awoodeen in aqaladooda ay ku daawadaan ciyaartan weyn halkan waa mid ka mid ah goobaha ay dhalinta iskugu timid si ay u daawadaan ciyaarta xulkeena Soomaaliya oo la ciyaaro dalka Zimbabwe goobtaana waa Pizza House dhammaan dhalinyarada halkan iskugu timid si ay u daawadaan ciyaarta xulkeena waxay ahaayeen kuwa dareen ahaan ka duwan dhalinta kale ee ka daawanaya xaafadahooda qaarkood baa istaaga ku daawanaya ciyaarta maadaama ay halkan u yimaadeen inay dareenkooda xamaasadda la wadaagaan bulshada inteeda kale qaybta hore ayaa socota wili xulkeena gool waa laga dhalin laayahay taasoo ku muujinaysa in xulkeena 100% u soo bixi karo wareega xiga tartankan salamida Britain Entertainment Center waa goob kale iskugu soo bixeen dhalinyaro waxa ay iyagoo daawanayaan ciyaarta xulkeena taasoo ahayd mid aad u xiiso badan sida muuqanaysa goobtan waa mid ka duwan goobtii hore kalama jeed in goobtan lagu daawanayo wax ku duwan wixii goobta hore aan ku soo aragnay balse kala duwanaanshaha waa xamaasadda iyo sawaxanka halkaani ka soconaya ugu dambeyn ciyaarta ayaa ku soo ilaatay 3 gool iyo 1 gool oo xulkeena qaranka Soomaaliya looga adkaaday taasoo ka dhigan in laga soo ciribtiray tartanka isreebka dhacdada koobka adduunka 2022 kadib markii ciyaarta ay soo ilaatay goobta iminka aan ku suganahay waxaan la hadlay qaar ka mid ah dhalinyarada daawanaysa ciyaarta iyagoo aad ugu xumaa in Soomaaliya laga adkaado bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Maxamed Axmed runtii galabta aad u faraxsanahay heer Soomaaliya ee wali ay soo gaarin mudooyinkii dambe aan soo gaarnay runtii galabta anoo liga badiyay aad u faraxsanahay maadaama kubadda soo bandhigay kubadda aad u heersareysa runtii waxaan aad u amaanayaa ciyaartooyda xulka Soomaaliyeed galabta meel muhiim ah u socday laakiin waa soo baajiyay maadaama xulkayga ciyaarayo si aan taayaro u garab istaago runtii aad iyo aad u mahadcelinayaa sanadkan waxaan rajaynayaa heerka sare inaan gaaro Soomaaliya xaleena guul tanaani aan ku dhawahay TV-ga Guul xaqiiqdii waxay ahayd runtii ciyaar xamaasadeeda wata markaa fiirisay inkastoo ciyaarta daqiiqadihii dambe go'aankeeda u imaaday laakiin waxaan u maleysaa ciyaartooyda iyo maaragtay qaabka ay u ciyaarayeen inkastoo maaragtay kubadaha rogaal celiska tiimka uu ciyaarayay haddana waxaan u maleysaa maaragtay ciyaarta natiijada daqiiqadihii dambe go'aamis waliba goolka Afrikiga ay goolka markay dhaliyeen oo 1-1 ka ahay rajada aad u fiicneed goolka maaragtay madaxa aan goolka iska dhaliyeen runtii ciyaarta kaasa isla yahay laakiin ciyaarta runtii waxay u muuqatay qaab marka aad fiirisid systemka ay Soomaaliya ku ciyaaraysay system difaaceeda oo ragaal celisina oo ahaa ahaan xadred goolka xaqiiqdu dareemi kartaa qof walba Soomaaliya wuxuu dareemayo waa sanadkii aan ugu rajada fiicneen kadib burburkii dalka sababtoo anaga jiilkan ka hadlayno waa jiilka anaga aan joogno marka runtii waxaan dareemaa xamaasad maaragtay xitaa curudkii koodo kale inuu uga dhintay xanuunkeedo kale aan dareemay dhawahay wallahi maanta xog Soomaaliya inay ka haraan maxaa la isreebka World Cup-ka aad uga xubnahay dhamaanteena maxaa la taageer ahaan kale iyo ka ciyaartooyda ama dhamaan isku niidanahay ciyaartooyda oo xog Soomaaliya matalaysay dhamaantood wixii maxaa la gooldaradii maanta qaadanay ayaga laftigooda waxay ay u soo ahaayeen maahan oo waxa way goolbar loo wada dhacay waa dhamaanteen waana ku faraxsanahay in heerka soo gaarno heerar ka duwan inaan gaari doono rajayna insha Allah kubadana waa soo laabatay aad aan ugu faraxsanahay